qorshaha naqshadaynta caasimadda Galmudug wajigiisa labaad ayaa maanta ka bilowday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qorow oo ay weheliyaan wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dawladda ku-meel gaarka ahayd Cabdisamed Macalin Maxamuud. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Mudane Martella ayaa maanta kormeer ku tagay halka ay shaqada ka hayaan guddiga ka shaqeynaya qorshaha saarista naqshadaynta magaalada Toonbalan, kuwaasi oo maanta bilaabay bixinta wadooyinka loogu talagalay in ay yeelato Dhuusamareebta cusub. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Galmudug Maxamed Martella iyo injineer Cumar oo gacanta ku haya naqshadaynta wadooyinkan ayaa si wadajir ah uga warbixiyay hawsha naqshadaynta caasimadda ee haatan maraya wajiga labaad ee bixinta wadooyinka. intii Dhuusamareeb ee Toonbalanka qaybteedii labaad aan u gudubnay, qaybtii koowaad ee ahayd naqshadaynta laga soo gudbay, qaybtii labaad oo ahaa jid bixinta in la soo galay. waxaa muuqato in magaaladu ay soo kabanayso, ay soo qurxoonanayso. waxaan mahaddaas iskale oo aan aad iyo aad uga mahad celinayna anigoo Link iyo shirkadda Madguuri oo nagala joogo injineer Umar Diiriye in maanta ay nala joogaan gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Geedo Qorow iyo wasiirkeenii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Cabdisamed Macalin Maxamuud. iyo aad waxaan mahad ugu celinaynaa gudoomiyaha xoogga oo saaray in magaaladan ay noqoto magaalo dhismato. magaalo ma dhismato haddaysan naqshad lahayn, oo wadooyin lahayn, oo masaajid lahayn, oo biyo lahayn, oo koronto lahayn. waxay tani keeni doontaa in dadkeenii dibadda jira soo noqdaan. waxay keeni doontaa hoteello waaweyn iyo guryo qurxoon laga dhiso magaaladan oo dadku ay soo degaan. waxaan halkan isugu nimid shaqadii fayskii labaad oo aan ka wadno Dhuusamareeb oo ah horumarinta magaaladan si loogu fadhiisiyo naqshad casri ah oo aan saarnay, isagana xilqaana micnaha oo magaalooyinka Galmudug oo dhan inaan saarno naqshad cusub oo waafaqsan standardka adduunka waafaqsan. marka waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa insha Allah taala si guul inay noogu dhamaan doonto. maanta waxaan furaynaa wadadii koowaad oo aan ku bilownay shaqada ayaan halkan ka furaynaa. wadooyinku waxay u qaybsami doonaan wadooyin 15 oo ugu yar 20 way jiri doonaan, wadooyin kale oo 30 way jiri doonaan oo sektarada dhan soo afmeeri doona insha Allah taala. waxaan rajaynayaa insha Allah inay guul noogu dhamaato. waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha Geedo Qorow, wasiirka, gudoomiyaha Martella, Chamber of Commerce, matalana shirkadda Global Link. Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qorow, gudoomiyaha caasimadda Galmudug oo u mahad celiyay shirkadaha gacanta ku haya naqshadayntan, ayaa dul istaagay muhiimadda bulshada caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb u leeyahay hawshan soconaysa. bacda salaam waxaa sharaf iyo ammaan runtii maanta noo ah inaan bilowno qaybtii labaad oo Toonbalanka Dhuusamareebta cusub loo samaynayo. runtii aad iyo aad ayaan Ilaahay ugu xamdi naqaynaa inuu maanta marxaladdan soo gaarsiiyay. waxaan rabaa inaan arrintan wax yar dib ugu laabto anigoo runtii u mahad celinaya shirkadaha Global Link iyo Madguur oo hawshan runtii aad iyo aad uga qayb qaateen. Madguur oo ay macnaha ay matalayaan injineer Cumar iyo injineer kale oo maqan, waxay ahaayeen injineeradii naqshadda sameynayay oo maaragtay dhulka dhan naqshadda magaalada dhan kastay tahaba dejinay. Global Linkina waxay ka gacan siineysay injineeraday gacan siineysay waxay ahaayeen dadka maalgeliyayaalka oo maaragtay ganacsatada ka socotay oo barnaamijkan naga gacan siinay. annaguna degmo ahaan iyo annagoo madaxweynahana runtii oo gacanta ugu weyn hawshan naga siiyay waxaan ahayn dadka hawsha maaragtay sida gaarka shacabka iyo hawshan fariisinteeda ugu mashquulsanaa. Ilaahay maanta wuxuu soo gaarsiiyay inaan bilowno qaybtii labaad kadib markii naqshadii la dhameystiray oo dhulkii la sameeyay rabay intii si badnayd qaybta waliba koonfur magaalada la xareeyay naqshadeedii. qof walbana dhul walba intii jidka baxaya iyo jidadkii sida ay yihiin iyo meel walba oo jidadkaas la gaarsiinayo markii la xareeyay oo naqshadii la dejiyay kadib saaka waxaan maraynaa indhihiina ugu jeedaan inaan wadadii koobaad aan bilownay. waxa Ilaahay mahadiisa dadka beerreyda ama goofleyda oo dhulalkan haystay inay hawshii aan wadnay nala fahmeen. wax ciidana oo nala socdo oo shaqadan hadda saakii naga gacan siinaya ma jiraan. waxa kaliya naga gacan siinaya dadkii goofleyda ahaa oo ayagu ku qancay maaragtay inay shaqadaano shaqo ay tahay muhiim u tahay. dhulku hadduusan naqshad haysan, hadduusan wada lahayn, hadduusan sabroloog haysan, hadduusan dhul qurxoon ahayn, cidna wax uma galo. marka inay goofleydii inta nala fahmeen oo maaragtay qarash badan oo bixi lahaay iyo juhdi badan oo dhici lahaay iyo dhibaato badan oo dhulalka qaar markii la sameeynayo laga mari lahaay, arrintaas ay naga kaafiyeen oo ayagu ay baabuurkii hor socdaan. taas runtii muhiimad weyn noo ah. waana uga mahad celinaynaa sida dhow oo maaragtay goofleydu ay noola shaqeeyeen.
waxaan runtii si gaar u mahad celinayaa injineerada waqti kasta hawshan ku mashquulsanaa oo naqshadan sameeyay iyo maalgeliyayaalka Global Link oo matalayo Master Model oo hawshan runtii aad iyo aad ugu mashquulsanaay oo gacan weyn naga siiyay oo aysan hawshu meeshan soo gaari lahayn haddii aan taa la heli lahayn waxaan rabaa halkan war badan ayaa jiri jiray waxaanu ma fuli doonaan waxaanu ma soconayaan say noqon doontaa waxaas waa laga yimid Dhuusamareeb waa ay dhaqaaqday dadka dibadda jira ama dalka jooga oo deegaanka reer Galmudug daneynaya iyo inta maalgeliyayaalka oo dhan oo maaragtay daneynaysa magaaladan cusub haddii waqtigu idinka dhamaado oo dhulka fayaalaha iyo dhulka cusub la idinka qabsado waqti aanan meel idin heli karin hadhow haddaad timaadaan annagu waxaan idin sheegno ma hayno Cabdi Fataax Yuusuf Maxamuud warbaahinta Shabeelle Dhuusamareeb